maamulka gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqay qorshe cusub oo lagu sugayo amniga magaalada Muqdisho. Gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Jariir Yabo ayaa sheegay in dhawaan maamulka gobolka Banaadir oo kaashanaya hay'adaha ammaanka, nabad sugidda iyo booliiska in dhawaan guri loo baari doono guryaha ku yaala magaalada Muqdisho. Waxa uu tilmaamay qorshahan cusub ee wada maamulka gobolka Banaadir in wax uu kaga qabanayo falalka amni darrada ah inta badan ku soo laabta magaalada Muqdisho. والله ده قرشة كدجن قرشان كودنا هدو إله يراهدو سيدا ودق سياها بدن الشغلاس واللو بالله بدونا نجا هي أدها أمانك أو إسكا كاشنين هدو إله يراهدو وحرجينا يا إني دوام بالله بدون تهدو إله يراهدو وأنا الوقت بني هاي ده مجالدو إني مالك سيدو هراء إسكا جوكتو صحما هالمركا إن وحلا إسكو ديو أو ماركتي دتك ammaankooda sidii loo sugi lahaa magaalada ammaan ay u noqon lahayd in maaragtay qorshe la yimaado waa lagu qasbaya marka annaga iyo hay'adaha ammaanka gobolka Banaadir Niisa iyo booliiska oo iskaashanayaan qorshahaas wadna haduu Ilaahay yiraahdo waana bilaaban doona haduu Ilaahay yiraahdo waqti dhow hadii hadda sida ay wax u qorsheeyaan ama sida ayaga ku talagalkooda uu yahay hadii ay wax u dhici lahaayeen ama maaragtay ay u suura gali lahayd inay yacni magaaladan in laga guuri lahaa waxaan ku sheegayaa oo ku xaqiijinayaa hay'adaha ammaanku waxa ay ka hortagaan oo ama dad ay soo adeegsadeen oo ama ha isqarxiyeen ama kuwa oo dadka dilo dadka shaqeynayo ama dawladda ha u shaqeeyaan ama shacabka ha ahaadeen oo loogu talagalay inay dadka elite-ka oo bulshada indheheeda inay laayaan loogu talagalo hay'adaha ammaanka maalin kasta gacanta ay ku soo dhigayaan baabuurta ay isku dayayaan inay qaraxyeen ta ka soo buuxiyaan magaalada soo galiyaan oo hay'aduhu ay gacanta ku dhigayaan oo daily ay u qabanayaan inta badan degmooyinka magaalada Muqdisho waxa ka dhaca dilal qorsheysan iyo qaraxyo ay mas'uuliyadooda sheegtaan ururka naflacaariga ah Al-Shabaab. Ciidamada ammaanka maalmihii la soo dhaafay waxay kordhiyeen howlgallada ay ku xaqiijinayaan ammaanka magaalada Muqdisho kuwa ay ku soo qabteen ciyaal weero dhibaato ku haya shacabka magaalada Muqdisho kadib markii ciidamada booliiska ay ku soo wargeliyeen dadkii laga dhacay taleefanada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhawaan ka hadlayay amniga caasimadda waxa uu sheegay inay kordheen falalka amni darrada ah iyo dilalka qorsheysan ee berihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho. Madaxweynaha waxa uu sheegay inay ka go'an tahay in la xaqiijiyo amniga magaalada Muqdisho. Dowladda Federaalka Soomaaliya gaar ahaan mas'uuliyiinta qaabilsan ammaanka ayaa lagu eedeeyaa inta badan inay ka gaabiyaan amniga caasimadda isla markaana magaalada Muqdisho ay ka dhacaan dhacdooyin mahadho ku reebay shacabka ku nool magaalada Muqdisho.